iyo haweenka sharafta leh ee madashan milkaha iyo maamuuska kale fadhiya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan mudayaa mar weyn sharaf weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo golaha kan iyo gobashan goboleed ay goobjoog ka yihiin haldoorka hogaamiyayaasha dhaqanka ee bulshada gobolka Sool. walaalayaal waxaan jecelahay inaan si kooban isu dul taago qodobo muhiim ah ay ka mid yihiin tabashooyinka degmada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle, midnimada iyo wadajirka ummadda, diiwaangelinta, adkeynta nabadgelyada, horumarka. tabashada bulshada gobolka Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle waxaan xogaal u ahay in hogaamiyayaasha siyaasadda iyo dhaqanka ee degmooyinka Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle ay ka qabaan qawad iyo tabasho qaabka awood qaybsiga talada dalka. waxaan aaminsanahay in cadaaladu tahay wax kaliya ee ummadda ku wadaaloobi karto. waxaan aaminsanahay in beelaha iyo bulshada Soomaaliyeed yihiin kuwo siman oo leh xaq iyo xurmo isku mid ah. waxaan leeyahay sida ninkii yidhi, dadku waa wada ciise oo midna caaramo dheera. waxaan aaminsanahay in la qaybsado hawsha, halabada iyo hantida qaranka yaglaasha ah. waxaan garwaaqsanahay inay jid iyo dow tahay in dhib iyo dheef la wadaago. walaalayaal, waxaan gar u arkaa in wixii qaldamay la soco. waxaan gar u arkaa in la dheeli tiro awood qaybsiga talada dalka. waxaan ku qanacsanahay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo saami qaybsiga kuraastada baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland. walaalayaal, waxaan diyaar u nahay inaynu idinka tirno tabashada iyo turxaan kasta oo aad tirsanaysaan. ma nihin dad kale tegi kara, ma nihin dad kale taban kara, tashan kara. waxaynu nahay dad isku dan ah oo isku dal ah. walaalayaal, waxaan leeyahay aan wada tashanno waan is-aaminno. hogaaminta dalka waa loo siman yahay. kootada cid gaara uguma jirto, uguma xidhna. xilkiisuna magan alle waa meerto oo maalinba cid baa madax ka ah. maanta anigaa madaxweyne ka ah Somaliland, shalana waxaa madaxweyne ka ah Daahir Yaale Kaahin oo ka soo jeeda gobolka Awdal. beritana nin reer Soola ayaa wax ka mid noqon kara. walaalayaal, xaq baad u leedihiin inaad maalintiina aaneedaan hogaaminta dalka. mana jirto wax idinka hortaagan oo hareertiina qabsada, kana qayb qaata diiwaangelinta iyo nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta badan. haddaba si ummad ahaan aynu u kala bogsanno, isla markaana si mugle iyo miisaan leh u falanqayno arrimaha iyo wax kasta oo khuseeya danaheena guud. waxaan ugu baaqayaa mar labaad gobol wada hadal oo rasmi ah dhammaan garaadada, uqaasha, siyaasiyiinta deegaanka Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle. waxaan ku marti qaadayaa 25 bisha tobnaad 2016 magaalada Burco ee shirkaasi ka dhici doono si uu xoogaysto isfahankaasi, isdhexgalka, nabad ku wada noolaanshaha bulshada. waxaan xukuumaddeedu ka qayb qaadatay shirar dacoodyo aada u qiimo badan, kuwaasoo ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay magaalada Awlboogays oo aan jecelahay inaan halkan ka hambaliyeeyo haldoorkii isugu yimid shirweynaha. waxaan soo dhameeyay go'aamada shirka Awlboogays ka soo baxay.
waxaan soo dhaweynayaa dhammaan heshiisyadii iskaashiga iyo wax wada qabsiga ahaa ee ku dhex maray xukuumadda Somaliland iyo beelaha Maxamuud Bare Injiile iyo Cabdiraxmaan Harti. sidoo kale waxaan maqaleynayaa shirka dhawaan ka dhacay magaalada Caynabo. waxaan soo dhaweynayaa natiijadii shirka ka soo baxday ee salka ku haysay bilowga nabad iyo wada hadal dhex mara xukuumadda Somaliland iyo Khaatumo. waxaan soo dhaweynayaa isfahanka horudhaca ah iyo wada hadalka noo socda aniga iyo saaxiibka Cali Khaliif Galayd. labada iyadaba iyo ragga kale ee nala ayniga ah maanta nalogama fadhiyo inaanu colaan beerno ee waxaan looga fadhiyaa inaanu dalka u horseedno horumar iyo himilooyin ku dheer. Soomaalida waxaa ku maamaadaa cimri tagay ceeb laguma sakootiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inay u dhammaantaan tubta toosan inagu hormariyo tawfiiqdana ina waafajiyo. shirarkan googooska ah ee kala dambeeya ugama jeedno inaanu ku qaybinno ama ku kala qoqobno waxgaradka bulshada ee ku dhaqan dalkan. hase yeeshee waxaan uga gol leenahay kow in la xoojiyo nabadgelyada, laba in la abuuro jawi isfahan iyo wax wada qabsi, saddex in la ururiyo lana mideeyo aragtiyaha kala duwan ee deegaanada, afar in loo gogol xaadho shirweyne ballaaran ay ka wada xaajoodaan Somaliland iyo waxgaradka deegaanada Sool, Xaysibiya, Buuhoodle kaasoo aan maanta madasha ka mudeeyey. wadajirka iyo midnimada ummadda. midnimada iyo wadajirka ummadda waa mid ku fadhida muhiimad weyn oo marnaba aan madmadow la geli karin. Soomaalidu waxay ku maamaadaan laba ilaah baa u daawada qaaday, labana iyagaa daawo qaatay. waxaan leeyahay ummadda Somaliland ilaahay ayaa u daawo qaaday, waa kuwa wadaaga dal, dad, daaq, degaan, diin iyo dhaqan soo jireena oo durugsan. sidaa daraaddeed waxay ka dhigan yihiin halku-dhegga sakaaro laba tun oo la kala qalo ma leh. haddaba siyaasadda xukuumadda aan garwadeenka ka ahay waxaan dhexaad u ah ururinta iyo mideynta shacbi weynaha Somaliland mudana yaraya marweye. waxaan ahay oday rugcaddaa oo ummado aan riminayay in ka badan 40 sano una qaado aqoon siyaasadda hogaaminta hagaagsan. uma aqaan siyaasadda hogaamiyaha hagaagsan dulmi, tirsooc iyo dad la kala qaybiyo. sidaa daraaddeed waxay iga go-aana inaan ka tago dal iyo dad midaysan oo leh dareen keliya. waxaan diyaar u ahay inaan geliyo maal, maskax iyo muruq badan dhammaystirka dib u heshiisiinta dadkayga iyo dalkayga. walaalayaal waxaan idin leeyahay 5 nin oo isku tala ah hal shasho ayaa ka go-da, 5 nin oo kala tala ahna 5 shasho ayaa ka go-da. waxaan diyaar u ahay inaan qaado tallaabo kasta oo suurtagelin noqon karta taasoo lagu meelmarinayo midnimada qaranka iyo mataaninta muwaadiniinta ku abtirsada. diiwaangelinta. dowladda Somaliland waxay guddoonsatay in diiwaangelintu dhammaan dadka muwaadiniinta ah u dhashay jamhuuriyadda Somaliland ay u helaan jinsiyad ay aqoonsi muujinaya israacooda. mahadii mashruucaasi wuu socdaa, waxaana la meelmariyay 60%. inta hadhina waa la qaybin tiri doonaa sanadka 2017. dhinaca kale waxay xukuumaddu jamhuuriyadda Somaliland iyo dalalka deeq-bixiyaashu saaxiibka nahay
iska kaashanaya hirgelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha taasoo ay ujeeddadeedu tahay in si sax ah oo hufnaan sugan leh loo diiwaangeliyo dadka leh xaq codbixineed ama awood sharci u leh inay ka qayb qaataan doorashooyinka qorshaysan 2017 gaar ahaan waxaynu si fiican ugu guulaysanay xaqiijinta mashruucan oo sidii loogu talagalay uu ka hirgalay gobollada Togdheer, Awdal, Saaxil, Maroodijeex iyo Sanaag. gobolka Sool aynu maanta joognana idan eebihii waxay ka bilaabi doontaa maalinta salaasada 23 bisha 8 2016 anigoo fursadan iyo fagaaraha ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay in farta ugu fiiqo bulshada ku nool gobollada Sool ay sameeyeen buuhooda inay diiwaangelintu tahay muhiim isla markaana saameyn weyn ku leedahay tiirarka asaasiga ah ee nolosha gaar ahaan siyaasadda nabadda iyo horumarka. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Sool waxay sameeyeen buuhooda inay iska diiwaangeliyaan si xigmad xasilooni iyo xamaasad leh. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa garaadada uqaasha culamaa udiinka waxgaradka haldoorka iyo haweenka deegaanadan inay door weyn ka qaataan tisqaadka iyo taabagelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha. mudan ayaa nabadgelyada wax ka idhaahdo nabaddu waa asaaska nolosha. xukuumadda aan madaxda ka ahay waxay xoog saartay xoolo badanna u hurtay adkeynta nabadgelyada guud ahaan gobolka Sool. si gaar ah waxaan u xoojinay ammaanka magaalada Laascaanood oo dilal istaba jooga isla markaana tiro badan ay ka dhici jireen xilliyadii hore taasoo sababtay in laga barakaco iyo inuu qofku ka welwelo cawabariga naftiisa. allaheen weyn baa mahad leh ee inagu manaystay nabadda aynu haysanno iyo nabcooyinka kale ee faraha badan. dhinaca kale labadii sane oo u dambeeyey waxaa gobolka ka dhacay dhibaatooyin dhex maray beelo walaala ah sida shaqaaqooyinka ka dhex dhacay Taleex, Xudun iyo Dharkayn. deegaamada kor ku xusan waxaanu ku samaynay howlgallo laxaad leh oo isugu jiraan nabad ilaalin iyo dhexdhexaadin. waxaan jeclahay halkan ka bogaadiyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dadaal weyn ka geystay xalinta dhibaatooyinka. mar labaad waxaan u ducaynayaa duqaydii iyo waayeelkii dhexdhexaadinta ka waday magaalada Duume. waxaan eebbe uga baryayaa inuu ku guuleeyo dadaalka ay wadaan iyo inuu miisaanka xasanaadkooda ku biiriyo camalka wanaagsan ay wadaan. waxaan u caddaynayaa garaadada iyo madax dhaqameedyada hawsha dhexdhexaadinta labada beelood ee walaalaha u guntaday inay si buuxda u garab taaganahay. ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ee Faarax Cali iyo Sabakaal Cali inay ka heshiiyaan dhibaatooyinka dhex maray. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ee Maxamed Garaad iyo Cabdi Garaad inay joojiyaan colaadda dhexdooda ah. waxaan leeyahay walaalayaal colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. waxaan leeyahay walaalayaal waxaan maanta talo inoogu baahan dadka inta nool inoogama baahna intii dhimatay. waxaa kaloo aynu ka gubaabinayaa inaynu hoggaansamaan talooyinka go'aamada ka soo baxa guurtida dhexdhexaadinta ee ciidamada nabad ilaalinta har iyo habeen heeganka u ah. horumarka xisbiga kulmiye markii uu talada dalka ku guulaystay muddo yar kadib waxaa xukuumaddeedu guddoonsatay in gobolka Sool laga hirgeliyo horumar laxaad leh maadaama uu ku jiro dib u dhac weyn oo saameeyey adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaale.
waxaa hubaal ah in muddadii 6 sannadood ahayd ee aan dalkan madaxweynaha ka ahaa wax badan iska bedeleen horumarka gobolka Sool gaar ahaan tayeynta iyo kor u qaadidda tirada adeegyada bulshada. tusaale kooban waxaan u soo qaadan karaa dhinaca waxbarashada oo dildaac weyn ka jiray xilligii hore. waxaan ka hirgelinay gobolka Sool content school ama dugsi oo isugu jira noocyada kala duwan ee hoose, dhexe iyo sare. waxaan ka howlgelinay 203 macallin oo cusub. waxaanu ka dhisnay jaamacadda Nugaal oo ka mid ah oo ka qalin jabiyeen aqoon-yahano badan oo dalkan iyo dadkan wax ku soo kordhiyey. waxaanu qodnay ceelal biyood. si gaara markaan soo dul taago magaalada madax gobolka Sool ee Laascaanood waxaa xukuumad ahaan ka sameynay kawaanka hilibka, saribada khudradda iyo wadooyin dhan 7 kilomitir iyo 6 kilomitir oo hadda gacanta lagu hayo. waxaanu sameynay garoon kubadeed oo hadda roog casri ah la dhigayo. waxaa hadda gacanta lagu hayaa dhismaha hooy dugsi cusub iyo dib-u-dhiska iskuulkii hore ee dumay, iyada oo hadda lagu qalabayn doono agab waxbarasho oo casri ah iyo macallimiin tayo leh. dhinaca kale waxaa hadda la bilaabay dayactirka iyo dib-u-dhiska cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood, iyada oo lagu soo kordhin doono qalab cusub oo casri ah, daawo bilaasha iyo 3 dhakhaatiir oo si joogto ah uga howlgala. mashaariicda hadda bilaabmay ee lagu maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland waxaa ku baxay lacag dhan $7 milyan. dhinaca kale waxaa gacanta ku haynaa mashaariic horumarineed oo aan ka wadno qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sool sida Xudun, Awr-Boogays iyo Kalabayd. sidoo kale waxaanu iyana mashruuc ka furin doonaa degmada Ari Cadeeye, degmada Ari Cadeeye, Taleex, Yagoori, Dharkayn iyo Laascanood iyo Guri mudanayaal iyo Marwey. waxaa idin caddeeyayaa inaan xukuumadda ka go-an tahay in xoog la saaro horumarka gobolka Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle si loogu sameeyo isbeddel weyn nolosha bulshada deegaanada. waxaa noo qorshaysan inaan horumarka deegaanada loo sameeyo qorshe fog iyo mid dhow. kuwaasoo sanadkan dabayaaqadiisa ka muuqan doona buugga qorshaha dheer ee qarankan. ugu dambeyn kasi kow mas-uuliyadda ballaaran ee aan qarankan u wada hayo waxaan idin caddaynayaa inaan si gaara isaga xil saari doono dib-u-dhiska iyo horumarka deegaanka gobolka. runtii iyo gabagabadii waxaan leeyahay ambafaydee waxba hay farin. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hogaaminta iyo beerkeena balcadsu mariyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu midnimadeena iyo wadajirkeena adkeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu beeladoo dhan ina hareer mariyo, dadkeenana aamin isku dego, beledkeenana aamin ka dhigo. aamiin aamiin. wabilaahi tawfiiq. asalaamu calaykum.